Waxaa jiraan laacibiin waaweyn oo aan ku guuleysan abaalmarinta Ballon d'Or, halka kuwa kale ay si cadaalad darro ah ku qaateen. Waxaan idiin haynaa 6 laacib kuwaas oo u qalmeen inay ku guuleystaan abaalmarinta Ballon d'Or, balse si xaq darro ah loo siiyay ciyaaryahanno kale. Inta aanan gudaha u galin barnaamijka, haddii aad ka heshid fadlan like saar. Mahadsanid. Lionel Messi ayaa 2010 qaatay xil ciyaareed cajiib ah, wuxuuna dhaliyay 60 gool, balse dad badan ayaa rumaysnaa in uusan u qalmin abaalmarinta Ballon d'Or. Barcelona ayaa sanadkaasi ku hartay semi-finaalkii UEFA Champions League, waxaana reebtay kooxda Inter Milan. Sidoo kale xulkiisa Argentina ayaa ka haray koobkii adduunka, ciyaar ay la ciyaareen xulka Jarmalka. Dhinaca kale, ciyaaryahanka reer Dutch ee Wesley Sneijder ayaa sanadkaas ku hogaamiyay kooxdiisa Inter inay ku guuleystaan 3 koob oo kala ah Champions League, Serie A iyo Koob Italia, wuxuuna xulkiisa Netherland gaarsiiyay finaalihii koobka adduunka. Asiga ayaana ugu qalmay inuu abaalmarinta sanadkaasi hanto, balse waxaa la siiyay Messi. Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay Ballon d'Or 2013 si muran badan uu ku jiro. Bayern Munich ayaa sanadkaasi qaaday 4 koob oo uu ka mid yahay Champions League, waxaana ku hogaamiyay laacibkooda Franck Ribéry. Taageerayaal badan ayaa aaminsanaa in Ribéry uu yahay laacibka ugu fiican dunida ee xilligaas, balse taas ma dhicin. Ronaldo oo sanadkaasi dhaliyay 66 gool 56 kulan oo saftay ayaa la siiyay abaalmarinta. CR7 oo aanan qaadin wax koob ah ayaa sidaasi ku hantay abaalmarinta. Sorry Ribéry, runtii waad u qalantay. Pavel Nedved, Messi iyo Ronaldo ayaa lagu siiyay Ballon d'Or maadaama ay dhaliyeen goolal badan. 2003 waxaa jiray hal ciyaaryahan oo ku guuleysan karay Ballon d'Or, kaas oo dhaliyay 42 gool kuna darsaday 26 caawin, wuxuuna ahaa Thierry Henry. Laakiin Henry ayaa kaliya soo galay kaalinta labaad. Nedved oo dhaliyay wax ka yar kala bar goolashii uu dhaliyay Henry ayaa la siiyay abaalmarinta maxaa yeelay kooxdiisa ayaa timid finaalihii Champions League, waxayna ku guuleysatay Serie A. Taas ma cadaalad baa? Sorry Henry. Luis Figo 2000, dad badan ayaa ku fikirayay in Totti uu ku guuleysan doono, halka qaar kale ay qabeen in Zidane uu noqon doono kaalinta labaad, balse taas ma dhicin oo waxaaba abaalmarintii la siiyay Figo ayaa mar dambe qiray inuusan u qalmin abaalmarinta uu xilligaas ku guuleystay, wuxuuna soo qoray: "Waan ka xumahay abaalmarintii laga xaday 2000, waad u qalantay Totti." Michael Owen, Raul Blanco ayaa 2001 kooxdiisa Real Madrid ku hogaamiyay hanashada Champions League, wuxuuna ahaa gooldhaliyihii ugu sareeyay ee tartankaas, balse Michael Owen oo kooxdiisa Liverpool ku guuleystay FA Cup, League Cup iyo UEFA Cup ayaa la siiyay abaalmarinta. Fabio Cannavaro 2006, fadeexadii ugu weyneed ee Ballon d'Or ayaa dhacday kadib markii Fabio Cannavaro uu ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or. Cannavaro oo ka ciyaarayay daafaca dhexe ayaa la aaminsan yahay inuusan xitaa ahayn ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee xulkiisa Talyaaniga ee qaaday koobkii adduunka, waxaana ka fiicnaa Buffon iyo Pirlo. Taageerayaal badan ayaana la yaab u noqotay markii la siiyay abaalmarintaas. Haddaba daawade, ma aaminsan tahay in laacibiintaasi ay u qalmeen inay ku guuleystaan abaalmarinta Ballon d'Or? Fikirkaaga hoos noogu reeb.